سلام الله صاحب يا الله يسلم دمانتين ومركله iyo muuqaal cusub muuqaalka maanta waxaan idinku soo gudbinayaa 10 laptop oo isleeyahay hadii aad tahay arday IT ama computer science ama hadii sidoo kale aad tahay gamer oo aad dheeshid gameamka 10 laptop oo isleeyahay way ku anfici karaan oo hawshaada ay ku fulin karaan ayaa halkan kugu haya ku soo dhawaada muuqaalka oo faahfaahsan laptop ugu horeeyo hadii aan magaciisa kugu hormaro wuxuu noqonayaa Lenovo Yoga balse inta aan ugu dagalin muuqaalka waxaan ka codsanayaa channelkan wali aan subscribe saarin inaad subscribe saaratid boqolkiiba 60 daawadayaasha channelkan wali subscribe maysan saarin fadlan waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saartid si aad u heshid muuqaalo badan oo tayo leh muuqaalkan ku sii socono midka ugu horeeyo waxa la yiraahdaa Lenovo Yoga waa laptop 360 flip and fold design leh يعني waa la isku laabi karaa oo sida iPad-ka oo isticmaal kartaa sida laptop-ka oo isticmaali kartaa oo isku laabmaya 360 ayuu wareegan karaa oo aad isku laabi kartaa Core i7 waaye generation-kiisana waa 11th generation processor sidoo kale wuxuu leeyahay 2 Thunderbolt 3 ports for external drive and devices 2 Thunderbolt waxa waaye waxay la mid tahay sida USB-C oo kale sidoo kale wuxuu leeyahay 3 ports for external drive uu leeyahay saddex god oo kale ayagana external drive-yada kale looga xiro ayuu leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay battery awoodiisa sareyso sidoo kale wuxuu leeyahay 1TB SSD card midka labaad waxa la yiraahdaa HP Envy sidoo kale wuxuu leeyahay ultra boost Intel processor oo processorkiisa waad kordhisan kartaa si yani xawaaraha ama computerkaada culeys uusan u gelin markii aad dhowr tab isku furfurtid computerka uu yar jam gareysmaya sababtoo ah processorka waa maskaxda computerka maskaxdana hadii dhowr codsi loo diro ma taqaan midka ay ka hormarnayso midka kale marka culeys ayaa ka imaanaya meeshaas hadii aad marka aad ziyadisid awoodda maskaxda waxa fududaanaysa in dhowr shaqo ay isku qaban karto maskaxdaas oo ah processorka sidoo kale wuxuu leeyahay wide vision HD camera oo ah kamerada laptopka oo HD ah sidoo kale microphone fiican waa leeyahay touch screen waaye oo shaashadiisa waa touch screen ahaan oo isticmaal kartaa hadii kale caadi ah oo isticmaal kartaa midka saddexaadna listiga wuxuu noqonayaa Acer Predator Helios waa 16GB RAM 1TB SSD ayuu leeyahay midka afraad sidoo kale wuxuu noqonayaa HP Pavilion Gaming 15 waa 10th generation Intel Core processor uu leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay thermal cooling feature waxa loo to avoid overheating si yani computerka uusan u kululaanin marka aad game wax ku dhasho computerkaada oo jam ka dhigtid uu kululaanayo computerka marka adeeg wuxuu leeyahay marka maartay ka hortagayo inuu computerku ka kululaado sidoo kale battery fiican uu leeyahay oo ku haynaa ilaa 10 saacadood midka shanaad waa Asus TUF Gaming F17 sidoo kale kana waa laptop gaming ah wuxuu leeyahay featurekiisa ugu horeeya waxa waaye waa 20 million key stroke durability guaranteed يعني keyboardkiisa waxa isticmaali kartaa ama type gareyn kartaa 20 milyan oo jeer hadii sanad loo bedelo waxay noqonaysaa 10 sano iyo bar ayuu ku heynayaa waa Core i5 generation-kiisana waa 10 wuxuu leeyahay 512GB oo SSD ah waana upgradable memory oo waa kordhin kartaa sidoo kale wuxuu leeyahay 8GB DDR4 oo ah RAM-ka DDR4 waa double data rate 4 oo ah RAM-ka nooca ugu dambeeyay iyo SD RAM midka lixaad waxa waaye waa Dell XPS 9310 wuxuu leeyahay backlit keyboard with 1TB backlit state drive 1TB state drive SSD uu leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay 32GB oo RAM ah DDR4 ah 4GB inbuilt memory uu leeyahay oo motherboardka ku dhagan marka sidoo kale wuxuu leeyahay graphics fiican uu leeyahay midka toddobaad waxa waaye Microsoft Surface Pro 6 wuxuu leeyahay Intel UHD graphics 8GB RAM ayuu leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay inbuilt memory motherboard la socdo oo asagana ah 128GB batterigiisa waa 5 hours uu ku heynayaa midka sideedaad waa MacBook Pro batterigiisa waa 10 hours ilaa 10 hours ayuu ku heynayaa ultra smart backlit keyboard ayuu leeyahay keyboardkiisana leer ayuu shidayaa sidoo kale waa touch screen oo screen touch oo isticmaali kartaa midka sagaalaad waa Asus ZenBook 13 series waa portable aluminum body waa qaadan kartaa oo fudud yahay ma cuslo ay leeyihiin Windows 10 oo version-ka ugu dambeeyay uu ku install gareysan yahay midka tobanaadna waa Acer Aspire A515 Core i5 waaye waa 10th generation batterigiisa ilaa 9 hours 9.5 hours ayuu keenayaa 2MB graphics RAM uu leeyahay hadii badanaa isticmaada tahay reero editing oo qof wax edit gareeyo uu ku anfacaya wuxuu leeyahay 512MB flash memory speaker fiican uu leeyahay marka hadii aad tahay qof wax edit gareeyo oo kale uu ku anfacaya
tobankaas intaas ayay ku egyihiin haddii aad ka hesho muuqaalkan like saar wixii fikri filan oo commentiga noogu reeb subscribe taada waa muhiim muuqaalo badan oo tayo leh ayaan kusoo gudbinaa channelkan waxaana jeclahay inaad ka heli doonto inta ku kulmayna muuqaalkan xiga waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo